أخوة الكرام، waxaan ka jawaabayaa oo meeshan saxaafaduhu igu yimaadeen been abuur lagu been abuurtay oo wax aan jirin ah, sal iyo raad midna aan lahayn ah. qofku dadku waa hadlaa, hadalku marka mafhuum iyo madluuq buu leeyahay. dadka qaar waa ahlu xaqiiqo, qaar waa ahlu baadin, qaar cilmu daahir bay ku hadlaan, qaar waxa ku hadlaan cilmu dhanni. waxa fiican marka qofkii hadla in la yiraahdo war sheekhow saasaan aragnay maxaa kala jeed. haddii qof meeshuu raba la aado, qof meeshuu raba u fasirto, hadda waxay noqonaysaa waxa la keenayo wax mawduucii laga hadlayo wax ka baxsan. sida hadda wakaana fi lmadiinati 9 rahadin markaan lahaa dad noocaasa baa magaalada joogo sida ilaahay tilmaamaya ah. marka muslimiinta dadka maqlahaya haddii alla kuu ron yahay waxay ogaanahayaan oo aan u sheegahayaa u caddaynhayaa wixii loo sheegay haddaan wax wara kama hayo, lakin waxay soo gaartay oo hadda laysoo sheegay in warkaan ayri la bedelay. waxyaalaha la sheegay oo carada been abuurka ah anugu ma aanan oran, mana iga suurtowdo, mana oran doono hadda kabacdi. inkastoo hadda wax dambe ku soo qaabilaya ay yihiin mustaqbal oo aan laga warqabi karin, haddana sida ra'yiga ku jira iyo culumta aan leeyahay ma oran doono xataa hadda kabacdi. saxaafadda marka hadda ay su-aalaysaan ii soo daaya. sheekh dad badan ayaa arintan siyaabo kala duwan uga hadlay. marxaban. sawirkan hadda la sheegayo muxuu yahay dadka faahfaahin ka sii? sawirkan hadda korkayga suran miya? ha sheekhaygii weeye, waa sheekhaygii, waa murabbigaygii. haddii alla kuu ron yahay nin aad u maqaam weyn weeye, macnaa oo darajo weyn weeye, ilaa agtiisa darajo weyn ku leh. wararka qaar waxay tilmaamayaan in sawirkaas muuqaal laga duubay adiga inaad ku tilmaamaysid inuu yahay rasuulka sallallahu alayhi wasallam. dadkuna ay aad arinta u hadalayaan, mas'uuliyiin ka tirsan galmudugna ay sheegeen in baadil ay tahay arinta laguna soo qabta. nabi baa la soo wareeba taas weliga ma maqal. waa sawir ku banaan xataa ma maqal, waa la soo wareeska daay. galmudug waxay sheegtay in lagu soo qabto maadaama sida ay sheegeen gef aad u geysatay rasuulka. arintaas waa taas aad waa ku ammaanayaa. haddayba xabiibka saas u xisuusan yihiin waa waxa ka waayeebe. anugu meeshaan ilaa 9 sano baan ilaahay xuskiisa u fadhiyey iyo xabiibka salawaadkiisa. marka hal qof oo galmudug oo la ninkaasi waa fiican yahay ma maqale, maanta alihi day ku soo dejiyey khayr baa sheegaysaa niyo.